Grand Amoto gacan ku dhiiglahani wuxuu dilay Chad oo ah aabihiisa iyo hooyadiisa Margaret iyo walaalkiisa Cody. Chad iyo Margaret waxay ahayn laba qof oo ku wada nolol aad u farxad badan, waxayna dhaleen 3 wiil oo kala ah Jason, Cody iyo Grant, waxaana ugu yaraa 3dooda Grant. familkan ayaa ku noolaa Florida, noloshoodana waxay ahayd mid aad u wanaagsan oo aad u qurux badan. famil ka fog dhibaatada ayay ahaayeen, wayna isjeclaayeen. Cody iyo Grant aad ayay iskugu wanaagsanaayeen, laakiin Jason wuxuu ahaa qof kaligiisa socda. Cody iyo Grant markay weynaadeen waxay wada doorteen dhakhtarnimo, halka Jason uu doortay inuu noqdo injineer. Jason ayaa ka helay meel gobol ah shaqo aad u wanaagsan, isagoo ku qanacsanaa familkiisa inuu ka dhex baxo maadaama uu isaga ahaa kaligiis socod. labadii kale ee kala ahaa Grant iyo Cody iyagana shaqadoodii ayay iska wateen. xaalku wuxuu ahaa mid caadi ah, laakiin waxaa la ogaaday Grant inuu bukaanada siiyo daawooyin aan daawooyinkooda ahayn, arrintaasoo aad loola yaabay. lamana oga waxyaabaha uu sidaasi u sameeyey, arrintaasoo sabab u noqon karto inuu Grant galo xabsi. ayaa haddana waxaa lagu ixtiraamay Cody dartiisa. Cody wuxuu ahaa qof aad loo jecel yahay, isbitaalkana aad looga qadariyo. kuwa isbitaalka jooga waxay go'aan ku gaareen maadaama Cody ay aad u ixtiraamaan in aan lagu dacweyn Grant booliiska si aysan arrintaasi u gaarin maxkamadda. Grant ayaa shaqada laga buriyey. sidaan ognahay Mareykanka shaqo haddii laga ceyriyo oo lagu geliyo systemka waxa adag in aad hesho shaqo cusub. Grant horumarkii uu ka lahaa inuu ka gaaro dhakhtarnimada way u dhamaatay, xitaa ma jirto rajo. Grant wuxuu bilaabay inuu isku dhaxyaaco, shaqo ma lahan, walwal, qahar ayuu dareemayay. markii hore wuu shaqayn jiray, laakiin toogtan wuxuu wax walba ka qaadanayaa hooyadiisa. khalaas waxba ma haysto. tanina waa bilowga Grant ee nolosha adag, laakiin wuxuu haystaa Grant walaal wanaagsan kaasoo wax walba siiyo oo saacida. Cody walaalkiisa xaalka uu ku jiro kama uusan kaga tegin walaalkiisa, wuxuuna ku dadaalay xaaladda uu ku jiro walaalkiisa inuu ka saaro. Grant inta ugu badan guriga ayuu iska joogaa, waqtiga ugu badanna guriga ayuu ku qaataa. sidoo kale wuxuu waqtigiisa ugu badan ku bixiyaa baraha bulshada, wuxuu daawadaa dadka caanka ah kuwaasoo soo gala live-yada. Grant ayaa ku fakeray dadkan caanka ka ah baraha bulshada waxay keenaan lacag aan laga helin dhakhtarnimada ama shaqooyinka qaarkood. wuxuu is yiri adiga maxaa kuu diiday iyaga oo kale inaad noqoto, inta aad guriga iska joogi lahayd caajis iyo stress aad ku dareemi lahayd. niyahow soco oo mashquuli naftaada. wuxuu go'aan ku gaaray streamer inuu noqdo, laakiin wuxuu u baahan yahay kombiyuutar iyo qalabkiisa oo dhammaystiran. maalin iyagoo meel wada fadhiya ayuu ku yiri hooyadiisa iyo walaalkiisii aabihiisa, markaan waan ka soo baxay xaaladii, waxaan rabaa buug cusub oo nolosha ah inaan sameeyo. hadalkiisa ayay aad ugu farxeen, iyagoo ku yiri warka aad sheegtay waa mid lagu farxo, waxaan nahay garabkaaga. wuxuu ku yiri waxaan u baahanahay kombiyuutar iyo qalabkiisa oo dhammaystiran, waxaan rabaa inaan noqdo qof caan ah, waxaan rabaa lacagta aad shaqaysataan mid ka badan inaan keeno. familkiisa waxay ku yiraahdeen horumar ayaan kuu rajaynaynaa ee wax walba waa diyaar, iyagoo diidanaa inuu isniyad jebiyo. isagoo garab istaaga familkiisa aad ugu farxay, lacag badan ayay siiyeen. kadib wuxuu ku soo iibsaday wuxuu rabay. Grant ayaa bilaabay in maalin walba inuu furto live joogto ah, isagoo hol adag muujiyey si uu u noqdo qof caan ah. laakiin in aad caan noqotaa ma sahlano. mowduuca caannimada wuxuu u baahan yahay shakhsiyad aan lagu caajisin, qof muujiya karti iyo xitaa inaad soo kordhiso waxyaabo cusub. caannimada dheeldheel laguma helo, laakiin Grant ma lahan shakhsiyad, xamaasad iyo xitaa hadal macaan, waayo waxaad ku dhex jirtaa live, waxayna dadka kaa rabaan soo jiidasho. wax walba siduu rabay maysan noqon. Grant isagana wuxuu galay xaalad aad u adag. wuxuu aaminsanaa haddii uu live furtaa inuu heli doono dad aad u badan, kadibna uu noqon doono qof caan ah. Grant wuxuu bilaabay inuu iska galo website-yada. siduu website kasii website uu u galayay, wuxuu u yimid waxaan halkan idinkula wadaagi karin. website-kan gabdhaha ayaa waxay soo galayaan live si ay u qanciyaan ragga. lacagtaada ayaad dhiibanaysaa, kadibna waxaad dooranaysaa haweeneyda adiga aad doonto. website-kan ayaa ah website waxyaabaha xunxun lagu soo gudbiyo. Grant website-kaas maalin maalmaha ka mid ah wuxuu ku dhex bartay selfie, waa mid ka mid ah haweenka website-yadaasi ku dhex qaraabta. Grant ayaa selfie aad ugu helay, isagoo gabadha selfie waqti badan aad u daawan jiray. gabadhii ayuu ku waashay, wuxuu bilaabay inuu u diro hadiyado iyo lacag aad u tiro badan ilaa lacagtii ay ka dhammaatay. Grant selfie maadaama uu aad u jeclaa lacagtiina ay ka dhammaatay, wuxuu is yiri selfie la'aanteeda lama ahaan karo. website-kana waa lacag, waa inaad xal raadisaa. Grant wuxuu bilaabay inuu xado kaar bangiga aabihiisa, isagoo mar walba dirayay lacag aad u tiro badan iyo hadiyado. Grant ayaa la sheegay xilligaasi lacagtii uu ka isticmaalay bangiga aabihiisa inay gaartay $150,000 oo doolarka Mareykanka ah. lacagtan inta ugu badan kama uusan bixin kaarka aabihiisa oo kaliya, hooyadiisa ayuu oran jiray wax baan u baahanahay iyo walaalkiisa Cody. ugu dambeyn hooyadiisa iyo aabihiisa waxay ogaadeen lacagta halka ay ku baxdo. hooyadiisa iyo aabihiisana waxay ku yiraahdeen maxaad u samaysay sidaan, gabar ayaad lacagtaada ku dhamaysay, sidee ayaad wax u wadaa? isagana wuxuu ku yiri maxaa idinka galay, aniga xur ayaan ahay, waxaan rabo ayaan sameynayaa. ilaa aabihiisa uu ka caroodo. ugu dambeyn carada
dhacdadaasi ay keento in Grant laga buriyo guriga. Cody maadaama yaraantooda ay aad isku jeclaayeen walaalkiisa Grant ma uusan ka soo horjeysan walaalkiisa wuu caawin jiray xilli walba waxa uu rabo Grant ayuu siin jiray Cody laakiin Grant waa sidiisa wuxuu sameyn jiray website-kii ayuu dib ugu laabtay kaliya xalku uu arko selfie kaliya mar walba inuu daawado. Cody ayaa bilaabay walaalkiisa inuu u xiiso oo na jeclaysto walaalkiisa inuu dib ugu soo laabto guriga. Wuxuu bilaabay inuu aabihiisa iyo hooyadiisa uu kala hadlo inuu guriga ku soo laabto Grant. dambeyn uu ku qanciyay arinkaasi laakiin Cody waxa lagu jiri Grant waa in uu buuxiyo shuruudaha ku qoran warqadani kadib wuxuu ku noolaan karaa guriga haddii uu ka baxaana guriga in laga eriyi doono booliiskan uu la hadlay doono xilligaasi aabihiisa isla waqtigaasina la gelin doono xabsiga. Cody walaalkiisa ayuu la hadlay wuxuu ku dhahay u soo laabo guriga shuruudahana saxiix. Grant wuu ogolaaday shuruudahana waxa ku jireen inuusan xadi karin lacagta aabihiisa iyo hooyadiisa iyo in uu joojiyo isticmaalida website-ka selfie iyo wax kasta oo lacagtooda inuusan u isticmaali karin gabadhaas inuu ku daawado. wali wuxuu daawanayaa live-yadii iyo wixii xumaa maadaama aabihiisu uu digniinsi halkee ayuu ka keeni doonaa lacagta uu ku daawan lahaa selfie. Grant wuxuu bilaabay hooyadiis in uu ka xado lacagta maadaama ay hooyo tahay mid naxariis badan oo maskiin ah. hooyadiisi way ogaatay Grant inuu yahay sidiisa wali laakiin waa hooyo waxay bilowday inay kala qariso isaga iyo aabihiisa. marka qaarna lacagta wuu weydiisan jiray marna lacagta wuu ka xadi jiray Grant hooyadiisa laakiin waxay diidneed in guriga laga buriyo wiilkeeda ilaa ay gaartay lacagtii uu xadaayay $300,000 Mareykanka ah. lacagtaas uu ku bixiyay live-yadii uu ku daawan jiray selfie. lacagtii hore uu xadayna waxay gaaraysay $150,000 Mareykanka ah. sidaan wada ognahay wax walba oo laga qariyo aabaha guriga ugu dambeyn wuu ogaadaa. Grant aabihiisa wuxuu ogaaday wiilkiisa inuusan isbedelin. wuxuu go'aansaday inuu isla markiiba guriga ka buriyo isagoo aad u careysan. wuxuuna ku yiri Cody iyo xaaskiisa haddii aad xiriirisaan Grant waxa balan ah inaan guriga idinka buriyo. Cody wuxuu go'aansaday walaalkiisa inuu xiriirka u jaro. Grant hooyadiisana waxay go'aan ku gaartay inay xiriirka u jarto. Grant markii laga gooyay xiriirka walaalkiisa iyo hooyadiisa wuxuu bilaabay inuu isku dhexyaaco website-kii wuxuu ku darsaday daraagis. noloshii ayaa ku sii adkaatay markaani ma aan xaalkiisa sidii hore. hal mar ayuu isbedelay Grant wuxuu is yiri horta yaa sabab u ah xaalka aad hadda ku sugan tahay iyo dhibaatadan dhibku uu hadda ku jiro. daraagiskii ayaa waxay tuseen inay ka dambeeyaan hooyadiisa iyo walaalkiisa iyo aabihiisa. wuxuu yiri Grant iyagoo awoodaan inay garab isiyaan ayay ii diideen walaalkaygana isagoo ilaah waan ku jeclahay ayuu xiriirkayga jaray waa in aan ka aarsadaa dhammaantooda. wuxuu aaday isla markiiba gurigooda waxaana joogtay hooyadiisa oo kaliya. walaalkiisa ma uusan joogin guriga aabihiisana sidoo kale. walaalkiisa Jason isagana gobol kale ayuu ka shaqeeyaa. maxaa dhici doona uu ku sameyn doona Grant hooyadiisa markay furtay hooyadiisa albaabka wuxuu ku yiri hooyo waan ku xiisay xaaladaada inaan ogaado ayaan u imid. hab ayay siisay guriga ayayna soo gelisay maba ka warheynin Grant in uu wato hub. isla markiiba xabado ayuu ku dhuftay hooyadiisa isla markii meesha ayay ku geeriyootay. Grant mana uusan cararin guriga ayuu iska dhex fadhiistay. markii uu yimid aabihiisa gadaal ayuu ugu yimid isagana xabad ayuu ku dhuftay. jeebka aabihiisa ayuu baartay wuxuuna ka wada qaatay wixii lacag ahaa. wuxuuna isku dayay mobilka aabihiisa uu lahaa in uu furo laakiin way u noqon weysay. kadib ayuu soo jiiday aabihiisa gacanta ayuu u saaray. markii telefoonka uu u furmay wuxuu fariin u diray walaalkiisii maskiinka ahaa Cody isagoo isaga dhigaayo aabihiisa. wuxuu ku yiri waa inaad guriga si degdeg ah aad ku timaadaa wax ayaan ka rabay. Cody ayaa shaqadiisa isaga soo tagay isla xiligaasi wuxuuna si degdeg ah ku yimid guriga. isla markiiba wuu dilay walaalkiisa Cody oo xabad ayuu ku dhuftay. markii uu ka taqalusay dhammaantooda guriga ayuu baaray wuxuuna qaatay wixii muhiimka ahaa. maskaxdiisa ayuu ka shaqaysiiyay arintaana wuxuu isdhahay ka dhig dambi iyaga inay isdileen oo kale aabaha iyo hooyada inuu dilay oo kale Cody. kadibna Cody uu isaga isdilay. Grant wuxuu iska dhaadhiciyay sheekadan mal awaalka ahayd oo uu dejiyay. Grant wuxuu u isticmaalay dilka walaalkiisa iyo hooyadiisa iyo aabihiisa kaatima sawt waa wax lagu xiro hubka waxayna meesha ka saaran dhawaaqa rasaasta. meedadkii guriga waxay yaalaan maalintii labaad guriga iyadoo cidna aysan ogeyn. gurigooda wuxuu ahaa guri aad u weyn oo cidna u dhaweyn. maalintii labaad kuwii isbitaalka waxay isweydiiyeen muxuu u imaan waayay Cody. Cody wuxuu ahaa qof shaqadiisa marka uu ka soo daahayo la xiriira kuwa isbitaalka
isbitaalka wuxuuna u sheegi jiray shaqada haddii uu ka soo daahayo iyo haddii xaalad kale ay jirto kuwii isbitaalkana way la yaabeen Cody oo aan waxna u soo sheegin waxay isku dayeen inay wacaan laakiin kama uusan qaban waxay waceen booliiska waxay ku yiraahdeen Cody shalay ayuu nagu yiri aabe ayaa isoo wacay oo igu yiri degdeg igu imow kadibna waan wacnay oo ma qabanayo telefoonka maantana mana uusan imaan shaqada waxaan jeclaysanay inaan idin sheegno isla markii booliiska waxay aadeen gurigii Cody askartii markii ay yimaadeen gurigii Cody albaabkiisa ayay gargaraaceen albaabkiina lagama furin waxay go'aansadeen albaabka inay jabiyaan isla markiiba waxay arkeen meedadkoodii oo meesha yaalaan booliiska waxay bilaabeen baaritaan iyo dilaaga inay raadiyaan isla markiiba qof ayaa u yimid booliiska kuna yiri aaway wiilkooda Grant afartooda hal meel ay ku wada noolaan jireen booliiska iyagana isla markii waxay raadin ku bilaabeen Grant inay raadiyaan ilaa ay helaan baabuurkii uu watay isagoo agyaala meel hotel ah Grant markii uu dilay familkiisa wuu iska baxay hotel ayuu iska kireystay wuxuuna watay laptop isla markiiba wuxuu iska daawanayay selfie wax walwal ah kama qabin dilku uu geystay familkiisa ugu dambeyn booliiska gacanta ay ku soo dhigeen dambiilaha marka la soo qabtaana ma sheegto wuxuu sameeyay oo wuxuu taagnaa ma aanan sameyn arrinkan askartii markii ay ka daaleen waxay yiraahdeen aan u yeerno Jason oo ah walaalkii laga yaabaa isagan inuu wax u sheego isla markii Jason markuu soo galo walaalkiisa ayuu habsiiyay waayo ma aaminsano inuu dilay hooyadiisa iyo aabihiisa iyo walaalkiisa Jason ayaa ku dhahay Grant wixii dhacay kama aadan dambeeyay soo ma aha shaqo kuma lihid Grant ayaa ugu jawaabay maya Jason ayaa isagana waxa uu leeyahay ma rumaysan karo wixii dhacay waxaad ahayd qofkii ugu dambeeyay ee guriga Grant mana garanayo 6 bilood wixii ugu dambeeyay ee dhacay Jason wuu ka daalay walaalkiisa inuu cadeysto dambiga booliiska ayaa waxay kaxeenayaan Grant gacmaha ay baaritaan ku sameynayaan waxay ogaanayaan dambiga inuu isaga ka dambeeyay iyo markii dib loo raaco kamerooyinkii meelahaasi ku xirnaa waxaa la ogaaday qofkii ugu dambeeyay ee gala guriga inuu isaga ahaa maxkamadana ugu dambeyn waxay ku xukuntay xabsi daa'im Grant ilaa waqtigan aan joogno waa xabsi daa'im wuxuu u dilay familkiisa selfie oo waliba isaga aan garanaynin muuqaalkeena halkan ayuu ku egyahay haddii aad ka heshay muuqaalkan like garay sidoo kale u sii share garay asxaabtaada channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar